maxamed oo kaalay kaasigu xalay waynaga balansanayna waa kan kotonkaagiye bal boqolkan ku hel buu igu yidhi markaasaan idhi oo sabab kaasuu yidhi su-aal baan ku weydiiyey markaa konton buu ku siiyey boqolna wuu ku xujeeyey ha allahu naxariiste markaa su-aal baan ku weydiinayaa sidaan u odhanayo ereygaan odhanayo waa inaad u tiraahdaa sbiidkan ku odhanayana waa inaad u tiraahdaa markaasaan ku yidhi waayo waan odhanayaa soo daa markaasuu igu yidhi neelkaagan adhiga ee badiga iyo sii daba digaadigaalahow waxba aniga hayso dhudhun hore dhudhun dambe dhudhuganaflayne cidda aad u sii dhudhun hore dhudhun dambe dhulku ganaflaynayso aniga hayso dhudhun hore dhudhun dambe dhudhuganaflayne waan fahmi waaye imika laakiin waa nigan kuu sheegaya hagaag daawadayaal kulan wacan oo wanaagsan meel kasta oo aad daafaha caalamka naga daawanaysaan caawa barnaamijkan idiin wadaa ma aha siyaasad mana aha dood mana aha war mana aha fanaan aan waraysanayo hase ahaatee waa barnaamij markaad daawataan ama codka ama muuqaalka iyo codku markuu idin soo gaadho waa barnaamij aada xusuusan doontaan qof ummadda soomaaliyeed soomaali maxamed meel kasta oo ay caalamka ka joogto xusuus dheer ku leh la wada jeclaa qof intuu caan yahayna caan ahaa ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo qofka marka hore waxaan idinka codsanayaa isaga iyo dhammaan waalidiintii geeriyootayba in aynu 3 daqiiqo u aamusno faatixadana u marno oo aada wada taqaanaan curadkiisii maxamed axmed xasan cawke oo ah wiilkiisii curad ayaan ku waraysanayaa oo barnaamijka marti iigu ah maxamed axmed cawke marka hore waa kuma halkuu ku dhashay halkuu ku barbaaray halkuu wax ku bartay halkuu ku soo koray haye bismillaahi raxmaani raxiim dhammaan akhyaartana daawanaysa ee maal t v aada iyo aad baan u salaamaya salaanta muslimkee asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ayaan idin leeyahay waan ku soo dhowahay xasan maal dhider walaala hota waxaan ku dhashay anigu su-aashaada haddaan u noqdo muqdisho isbitaalka madiine ayaan ku dhashay 1986 marka muqdisho 2 sano od ayaaban joogayba 2 sanana waan yaraaba dagaalkuna wuxuu dhacay anigoo 2 jira kabacdi markaa waxaan u qaxnay anagu hooyo ayaa lahayd allah u naxariistay baasboor jabuutiyaana oo jabuuti bay noola qaxday walaashayda iga yarina urka ayay ku jirtay markaa aduu jabuuti ayaan ku yar barbaaray oo galaaskii koowaad anigoo 6 jira laygu daray kabacdi 6 jir markaan dhigtay galaaskii koowaad ilaa kii labaad ayaa 97kii adigu xagaagii markay ku beegan tahay allah naxariistay aabbo oo beriga fm-ta hargeysa furayay ayaa halkan hargeysa ayuu ku sugnaa oo qoladii b b c-da bushowski ayuu la socday aduu hooyo iyo aabbo berigaa way noolaayeen oo hooyo waxay dhimatay allah naxariistee 2001 bishii 12 halkuu aabbana geeriyooday 2015 bishii 11 intaas ayay kala horeeyeen adugu berigaa ayaan halkan hargeysa anu soo xagaa baxnay kabacdi aabba ayaan kulanay aabbaba adigu markaanu kulanay ayuu hooyo allah naxariista ku yidhi jabuuti ha igaga celin oo afka aan ku hadlayay berigaa af soomaaliguna waa igu adkaa oo afkii reer jabuutigaan ku hadlayay oo heedaasaan hayay moogta kabacdi adigu jabuuti ha ku celinina gabiley oo edaday degan tahay ayuu hooyo ku yidhi gabil ha la geeyo gabiley baan adu waxbarashada ka bilaabay oon galaaskii 4 sheekh maxamed warsame aan galay ilaa 8aad markaan marayay ayaan hargeysa naloo soo wareejiyo hargeysa iyo cidda u soo wareegtay
kabacdi halkan ayaan haddana secretarigan forwan ka bilaabay hargeysa oo 17 May baan galay moogta aduu waxbarashadeeda halkaasaan kasii waday weli waxaan joogaa Somaliland oo kamaan bixin dalkana waan ku suganahay haddana waxaan deganahay magaalada Wajaale waka way maxamed waxaad jirtay had iyo jeer markii aad eedda la joogtay aabbana allaha u naxariistee uu noolaa waxaad jirtay dee inaad ahaydeen 2 nin oo saaxiiba oo kaftamo oo wax isweydiisto oo way jirtaa intii dambe intii hore horta aabba waxaanu saaxiibnay 2006 way oo intii hore waa imanayay waa noqonayay oo 2006 waa markuu ii sheegay uu guri dalka ayaa joogaysa maalinta marka waxa ka horeysay su'aal ahayd war maxamed maxaad haysaa 2006 anigoo markaa yaraanimo balwada bilaabay markaasaan idhi aba waxa ma hayo markaasuu igu yidhi waa nin weyn looga wanaagsan waxa ma haye arrin ila kaalay aduu way ila fogaatay arrinkii maxaad ula tagtaa bal aabo maanta kugu dhowdaho dee Afrika baa lagaa kaxaynayaa aduu waxaan eegaba oo ayaa maalmaha ka mid ah aan ogaaday inaan jaamacad kale ku jiro oo jaamacadaasoo la yidhaahdo Indhaariya oo dee Afrikadan aan joogay Somaliland ku suganahay waa la wada qaylayaaba oo caleen akhtara mooyaane oo aan waxbarashadiiba ninow aan ka yar habsaamay markaasaa maalin dambe ayuu oo ciidi ku beegan tahay buu aabo ila kulmay markaasuu igu yidhi war yaa maxamed waa lagu waayaalkeed ka dhacday waa jooga isagoo markaa waa xagaab moogta waa 2006 markaasaan ku yidhi aabo waxay la kaalay baad tiro tiiban raadinaya laakiin hadda waan hayaa oo maxaad haysaayo markaa waxaan ku yidhi jaamacadda Indhaariyaan ku jira aabo markaasuu yaabo uu yidhi jaamacadda Indhaariya waa maxay markaasaan ku yidhi waa wadankan oo waa wadankan la wada qaylayo oo xitaa jaamacadda riyuhu igu cusub tahay waa dadka fahansiiyo jaamacadda Indhaariya waxay ahayd waa raamsigan akhtarka ee qaadkan uu la cunayo maalintii waa maalintii 5 macallin baa dhiga ka ugu horeeya aroortii markaa soo toosto waa abaabul markaasuu ku hagayaa halkaa mar oo halkaa kale ka qaado Sheekh Mirqaan baa Farxaan baa ku xiga markaasoo waxaa kaloo ku xiga macalinka kale ee Sheekh la yiraahdo Mirqaan xisaabiyo walaaciyo walbahaarna way ugu dambeeyaan intaas ayuu qaad ku leeyahay oo maalintu waa maalintu Mirqaan bari ka dambayso Mirqaan ma aha watan la yiraahdo oo halkan Itoobiya looga yimaadayo de waa akhtarkaas baa la cunayay marka waxaan uga jeeday jaamacadda kale aan dhigtaa inay wax kala aqoontii wiiga tagay waxbarashadii aan ku jiray intii uu weydiinay aaba moogta markaasaan yidhi maxaa baan aqoon baran akhtarun baan bartay sheekadaas aad moogta adoo ala kul xal wuxuu yiri waa la qaylaaya oo daqaadna waa la cunaaya laakiin aqoontaadii iyo waxbarashadaadii aaba dib ugu noqo adoo markii dambe waayahay oo sidaasaan isku ogeyno maalintaas ayay igu yiri waa joogaysaa adigu halkaaba abba kulama jeceli dalkan kula jecel maalinta uu runta ii sheegay uu igu yiri halkaaba kulama jeceli oo halkan xamil igu yiri ayaan aniguna markii dambe wadalkaaga hooyo meel ku dhaanta ma jirtay iska xamil hadalkii waan waxbarashadii dib ugu noqday oo aan halkan u soo wareegnay Hargeysa sheekadu saas ahayd oo aan jaamacadda Riyaha iyo wax uga sheekay barigaasana aaba markaa aan saaxiib waxa jirta maalin maalmaha kamida oo markii aad geli jirteen gurigii xagga aad isaga iska dhigaysay oo isagoo Allah u naxariistay guriga jiifa way jirtaa waxay ahayd wada waxa ka horeysay codka ayuu yar aanu Abdulxiin Carab la yiraahdo waa heen u shaqeeya aniguna bariga IT baan dhigan jiro oo 2011 baa ahayd codkan ba aan Abdulxiin baa iga duuba aniga ma habaan ku yiri moogta marka aniguna waxaan
qolo ayaan u yeergelin jiray wararka oo ahayd wargane iyo jaraa'id soo baxa weygii 2 cisho oo hubsada beriga ayaa haydo maalin maalmaha ka mid ah maalintii aan canjilay aabba codkiisa u yar ekeysiinayay guriga ku sugnayd waxay ahayd xawaadlan deganayd oo aabbaan ballansanay noo wiga yaraagay moogta oo aroornimadii oo meelaha 10kii waxbay gaadhay markaasaan idhi aabba seedu toosisaa markaasaan codkii aabba isku ekeysiiyo una canabey ayaan idhi moogta biyihii maa lai diiriyey halkaasaan ka bilaabay allah u naxariiste markaas walaalma toostay waryaa maxamedow nimco markaas halkaa eedana nooga yeedhay markaasaan anagoo de fadhiga taagnaa aan soo dhaqaaqoon biyo u diiriyo aabba biyi waan kuu dhigay maalintaa ayaa isna uu soo jeedo way maqlayay intaan ku hadlayeyba kabacdi markii uu soo toosay meel iyaloo aabbo ayayna way nooleed beriga allah u naxariiste ilaa uu hooyadii uu ag fadhiisto uu la sheekaysto mu bixi jirinba aabbo oo hooyadii agteeda ayaan u gogoli jiray allah u naxariisto ilaahay naxariis jannada ka waraabiyo dhammaan iyagiyo ummadda nebi maxamed be markaan u yeer gogolay ayuu ii yeedhay waryaa maxamedow waxaa dhacday markaasuu ii yeedhay aabbo markaasuu igu yidhi warba maxamedow kaalay markaasuu igu yidhi xalay waniga balansanayna waa kan kontokaagiye bal 100kan ku hel buu igu yidhi markaasaan idhi oo sabab markaasuu yidhi su-aal baan ku weydiiyey markaa 50 buu ku siiyey 100na wuu ku xujeeyey allah naxariiste marka su-aal baan ku weydiinayaa sidaan u odhanayo erigaan odhanayo waa inaad u tiraahdaa sbiidkan ku odhanayana waa inaad u tiraahdaa markaasaan ku yidhi waayo waan odhanayaa soo daa markaasuu igu yidhi neelkaagan adhiga ee badiga iyo sii dabadiga digaalahow waxba aniga hayso dhudhun hore dhudhu dambe dhudhu ganaflayne cidda aad u sii dhudhun hore dhudhu dambe dhulku ganaflaynayso aniga hayso dhudhun hore dhudhu dambe dhudhu ganaflayne waan fahmi waaye imika laakiin waa nigan kuu sheegaya markaasaan idhi igu celi aabbo markaasuu yidhi ma kugu celiya haa 3 jeer buu igu celiyey waan fahmi waayo dhudhu mooyaane wax kaleba waan gala markaasuu igu yidhi allah naxariiste hooyadii buu yidhi ayadaa ka qoro waa nayl 2 dhudhun iyo dhudhun dambe naylkaagan 2 dhudhun ee hore dhudhun dambe dhudhun ganaflayn aniga haysoo 2 dambe hore dhudhun hore dhudhun ganaflayn halkaa ugu sii 2 dambe hore dhudhun ganaflayn ugu soo 2 dambe hore dee degdeg ayaa loo odhanaya adoo markii dambe ayaan saan ugu celcelinayay alla yar keenay laakiin maalintan waan la waayey oo waa su-aasuu ii weydiiyey moogtahay adigu markaa qoyskii cid kale ma kusii xujaysay xujadan waxaa jirtay aniga laftayda markii aan xafiday ayaa baadeeda yeelo oo soo xagaabaxay oo sakariya ugu yeeryahay ayaa anigoo aan guriga wada joogno guriga ay deganaayeen oo markaa somaliland bay yimaadeen way soo xagaabaxeen iyaguna oo sanad iyo 2 sano ka bacdi waxay ahayd mooyaane mase xasuustee ayaan sakariye anoo u sheekeynaya ayaan intan ku idhi moogta maxaa tiri wigu idhi markaa isaguna sidii aan aabbo ugu idhi oo kale kaasuu yidhi igu soo celi waa yaraa moogta sakariyana berigaa oo mu gaadhin daadan imika u yahay soomaad garan markaasuu igu soo celiyo markaasuu hooyadii u tago hooye maxamed bal wuxuu leeyahay baka hadliyo wuxuu leeyahay markaasay aayadee yeedhay sakariya hooyale maxamed waxbuu leeyahay bal hooye waa maxay kaasaan ku idhi waa kelmaduu hore aabbo anigaba igu yidhi bal garow unbaana idhi hooye wax kale maan odhan adu ka bacdi adu yarkaa yare noogu wada yar baan ku idhi waan weydiiyaa aniguna